ku soo gaadhay qisadii iyo sidii Ibnu Cabbaas u daaweeyey ninkii maskaxda ka jiranaa. Asalaamu calaykum, ku soo dhawow muuqaal cusub iyo Ramadaan Kariim. Hilmaamka iyo faham xumidu waa xanuun badan dambaba dadka ku soo badanayay, taasoo aad arkayso qof dhalinyaro ah oo haddana marka aad wax weydiiso kugu odhanayo waan hilmaamay ama si fiican uma xasuusto. Markaan sidaa leeyahay uma jeedo yaan waxba la ilaawin ama la hilmaamin, sababtoo ah Ilaahay ayaa bani aadamka ku abuuray oo ku sheegay hilmaam badane, balse waxaan u jeedaa ilowshiyaha xanuunka ah ama xasuusta oo qofka ka yaraata, sabab kastaaba ha keentee. Haddaba maanta waxaan halkan kuugu soo bandhigayaa 2 qiso iyo dawadooda oo ay sida suuradda qur-aanka ahi u daweysay. Ibnu Haashim, Ilaahay raalli ha ka noqdee, ayaa siiradiisa ku warinaya. Waayaha ka mid ah ayaa masjidka Ibnu Cabbaas waxaa soo galay wiil dhalinyaro ah oo dharkiisu aad u wasakh badan yihiin, isla markaana isla hadlayo xagga maskaxda ka jiran. Dadkii masaajidka joogay ayaa arkay wiilkan xanuunsanaya masaajidka soo galay, deetana way ka saareen masaajidkii. Ibnu Cabbaas ayaa sheekadii mar dambe maqlay oo dadkii ku yidhi muxuu ahaa wiilkani. Waxay ugu jawaabeen waa qof xanuunsanayo oo waalan, wuxuu sameynayana aan isgaranaynin. Saaxiibkii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Ibnu Cabbaas ayaa yidhi igu yeedho wiilkan. Markii loo keenay ayuu gacmihiisii madaxii wiilka saaray, wuxuuna ku akhriyay suuratu Yaasiin. Markuu ku dhameeyay akhriskii suuradda Yaasiin ayaa Ilaahay amarkii u soo celiyay Ilaahay caqligiisii, xanuunkiina wuu ka caafimaaday. Dadkii ayaa la yaabay oo weydiiyey wuxuu ku akhriyay ee Ilaahay caqligiisii u soo celiyay. Wuxuu ugu jawaabay waxaan ku akhriyay suuraddii rasuulku ku sheegay inay tahay wadnaha qur-aanka ee suuratu Yaasiin. Sheikhul Islaam Ibnu Taymiya ayaa yidhi haddii waxa aan doonayay inaan xifdiyo ay igu adkaato xifdigeedu, ama aan mar walba hilmaamo oo aan xasuusan waayo, faraha ayaaban ka qaadi jiray. Waxaanan soo qaadan jiray musxafka kitaabka qur-aanka ah, waxaanan akhrisan jiray suuratu Yaasiin. Markaan dhammeeyo ayaan ku noqon jiray wixii igu adkaaday ama aan hilmaamay. Markaan hal mar akhriyo ayaabaan xifdiyi jiray gebi ahaanba. Inkastoo qur-aankan oo dhami yahay hanuun iyo dawo u yahay dadka islaamka ah, ayay haddana suuratu Yaasiin tahay furaha maskaxda iyo dawada. Haddaba daawade, waxaanu ku jirnaa bil Ramadaan ee intii ayaad dhammaysay qur-aanka kariimka, sababtoo ah bishani waa bishii qur-aanka samada laga soo rogay.